السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا وسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. kusoo dhawaada channelka anaga aad uga barateen maadooyinka sayniska, cilmiga xisaabaadka iyo fisikska iyo casharo la halmaala kombiyuutarada. Casharkan waxaan uga hadli doonaa muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa insha Allah haddii Ilaahay idmo complex number ustaad maxaa waaye. Waxaan kaloo qaadan doonaa waxa loo yaqaano imaginary number. Asagana imaginary number muxuu yahay ustaad? Complex number waxaa la lahaa waa number u qoran in a form of x plus yi. Number u qoran qaabkan ayaa waxaa la lahaa complex number, halka x iyo y loo yaqaano real numbers, i-na loo yaqaano imaginary number. Halka where x and y are real numbers belongs to real number, and I is an imaginary number. Okay, halka waxaa leeyahay x iyo y ay yihiin tirooyin real ah, loo yaqaan tirooyinka maangalka ah, halka i-na ay tahay imaginary number, tirooyinka dhalanteedka ama tirooyin aan maangal ahayn. Okay, guud ahaan numberska tirooyinka waxaa loo qaybiyaa ustaad. Guud ahaan numbers tirooyinka waxaa loo qaybiyaa laba qayb ayaa loo qaybiyaa. Labadaas qayb loo qaybiyaa waxaa kala ah real numbers iyo imaginary number. Real numbers ustaad waxaa ka mid ah tirooyinka realka loo yaqaano ayaa waxaa ah whole numbers, tirooyinka caadiga ah, stroke natural numbers, integers ayaa ka mid ah tirooyinka realka ah. Waxaa kaloo ka mid ah rational numbers, irrational numbers. Kuwaan oo dhan waxaa la isku dhahaa ustaad real numbers ayaa la isku dhahaa. Halka imaginary number uu yahay tirooyinka negative numbers. These are called negative numbers ama the square of negative numbers. Okay, ustaad waxaan rabaa inaan wax yar meeshaan imaginary number aan kaaga tilmaamo. Previously before 16th century aad bay u adkeed in lasoo saaro the square root of a negative number. Marka just like ardayga markuu fasalka koowaadka uu yahay, markii laba 6 ka jar ama laba 4 ka jar wuxuu ku dhahaa impossible, macquul maaha. Laba anoo haysto 4 maba ka jari ku leeyahay, laakiin indhaha ku dhahaa 4 laba ka jar. Markii loo fiiriyo heerku uu joogo waxaa la lahaa impossible la lahaa. Okay, markii lasoo gaaro dugsi dhexe meelahaas lasoo gaaro 6aad 7aad wixii ka dambeeya lasoo gaaro, ardaygu wuxuu bilaabaa inuu barto nambarada loo yaqaano abiyoniyaasha, kuwa 10 iyo kuwa togan ama negative integers. Marka wuxuu ogaanayaa tiro yar in tiro weyn laga jari karo ay ku siinayso negative numbers ay ku siinayso. Halkaas waxaa kaga bixayso mentality-gii ah impossible ay halkaas ka bixayso. Okay, salimada ardayga dugsi hoose dhexe kama dhaadhicin kartid number negative ku jira ayaa square root laga saaraya. Tusaale haddaan dhaha the square of x square is equal to -1. Logic ma ahan tiro haddaan laba jibaaro inay isiiso negative exponent. Waxaan rabaa negative value inay isiiso, macquul maaha. Markaan raadinayo -1 number isiinayo ma jiro, sababtoo square waxaa waaye number qiimaha value-ga asigoo laba jeer isku dhuftay waaye. Obviously haddaan rabo square-ga inaan helo numberkan x waa inaan x ku dhuftaa, laakiin haddaan rabo qiimo inaan helo negative isiinayo no way aad ku helaysid. Therefore waxaa leeyahay the square root of this number x square wuxuu leeyahay -1 square root ka saar x. Therefore waxay leedahay the root of -1. Halka x iyo i aan isku bedelayno ayaa qiimo ahaan isla egyihiin. Meeshaan waxaan leeyahay marka i waxay leedahay root of -1 ama i square is equal to -1. Therefore halka i ay tahay imaginary
imaginary number. Okay, ustaad markii la isku daro real number iyo imaginary number markii la isku geeyo waxay ku siinaysaa complex number ayay ku siinaysaa. tirooyinkan complex-ga marka halkay ka imaadaan waxay ka imaadaan number real ah markii lagu daro number imaginary ah lagu daro. halkaas qodobkaas waa isla fahanay oo maleeya. Therefore I hadda waxay u tahay placeholder ay waxay u tahay negative, the root of -1. marka qiimaha I waxay la eg tahay root of -1 I way ku siinaysaa ama qiimaha I wuxuu leeyahay root of -1. intaas waa isla fahanay oo maleeya. activity-ga aan fiirinaynaa marka activity-ga aan fiirinaynaa wuxuu leeyahay we fill the blank space, meelaha banaan aan buuxinaynaa. fill blank space. Okay ustaad, I square waxay la eg tahay -1 soomaan. Okay, midaan waxaan u kala qaadaynaa marka I power 3 aan rabaa inaan helo qiimaheeda soomaan. Yes, waxaan u kala qaadayaa I square oo ku dhacsan I. yacni haddaan I oo laba jibaaran aan ku dhufto I waxaan ogahay I power 3 inay la eg tahay. marka square I waxay la eg tahay allahi I oo laba jibaaran waxay la eg tahay -1. -1 times I waxay ku siinaysaa -I. halkaas waxaan helay I power 3. Okay, I power 4 waxaan u kala qaadayaa I square times I square. I square times I square waxay siinaysaa I power 4. marka waxaan ogahay I square inay la eg tahay -1 times I square -1. -1 times -1 waxay la eg tahay +1. taas ayaan qiimaheeda ku helaynaa. Okay, I power 5 ustaad waxaan u kala qaadi karaa I square times I square times I. Okay, I square times I square waa I power 4 times I waa I power 5. marka tan qiimaheedan ogahay waa -1 times I square oo -1 la eg times I. -1 times -1 waa +1 times I waxay la eg tahay I. taas halkaas ayaan kaga gudubnay. I power 6. I power 6 waxaan u kala qaadayaa I power 2 times I power 2 times I power 2. Yes, I power 2 times I power 2 waa I power 4 times 2 ku dar waa I power 6. Okay, I power 2 qiimaheedan ogahay waa -1, tan qiimaheeda waa -1, taasna qiimaheeda waa -1. -1 times -1 +1 times -1 ay ku siinay. I power 6 halkaas saas uga xalinay. I power 7 waxay la eg tahay. Okay, waxaan ogahay I power 3 qiimaheeda -I wa. Okay, waxaan u kala qaadayaa I power 3 times I power 4. sababtoo ah heerka isku dhufashada jibaarada waa la isku daraa soomaan. I power 7 I power 3 meeqa haystaa marka? I power 3 waxaan haystaa -I times I power 4 meeqa haystaa? I power 4 waxaan haystaa 1. -I times 1 waa -1. Okay, I power 8 waxaan u kala qaadayaa waxaan u kala qaadi karaa I power 3 times I power 3 times I power 3 isku dar waa 6 2 yes. I power 3 times I power 3 isku dar exponent-aha waa 6 ku dar waa 8. Okay, tan aan qiimaheeda ogahay I power 3 waxay la eg tahay -I bay la eg tahay times -I haddana waxaan ku dhufanaa haddana times I power 2 oo -1 la eg. Okay, -I times -I waa I square wa. I square times 1 waxay ku siinaysaa -I square oo la eg -I square waxay la eg tahay I square waxay la eg tahay -1 saasay la eg. Okay, si la mid ah 9 sidaasaan ku sameynayaa waan sameynayaa 10 11 12 you can do the rest. just stepskaas la raacaysaa I square qiimaheedaad haystaa sidaas ayd ku wadaysaa. haddaad I power 3 soo gaartidna I power 3 isticmaalay ku soo xiga sidaasaad ku xalinaysaa. Okay, example kan wuxuu leeyahay for each of the following complex number state
the real and the imaginary part. wuxuuna leeyahay waxaad kala sheegtaa qaybtee real ah qaybtee imaginary ah ee nambaradana la siiyey. Okay, ustaad waxaan dhahnay qaybta horta complex numberka wuxuu ka kooban yahay imaginary number iyo real number la isku daray. Okay, halka x iyo y aan dhahnay waxay yihiin waa real numbers halka i-na ay tahay imaginary. Marka halkan qaybta i-da wadato waa imaginary part, qaybta aan i-da wadanin ayaa loo yaqaanaa real part. Okay, marka real waxaan u qaadanaynaa re of z. The real part of z waxay la eg tahay 2 bay la eg tahay, halka imaginary part im aan u qaadanayo of z ay la eg tahay 3. Okay, saasaan ku xalin. B, real part of w waxay la eg tahay 3 bay la eg tahay, halka imaginary part oo w ay la eg tahay -9. ustaad hor saasaan guud ahaan aan u kala saaraynaa markiina la weydiiyo kala sheeg keebaa imaginary ah keebaa real. Write down each of the following complex number in a form of a plus ib where a, b and x belongs to real number. waxaa haysaa qiimaha complex numberkan ah qaabkaas ama u qoraysaa halka a iyo b. Okay, a example kan qaybtiisa a waxaa la x plus root of -1. Okay, hore waxaan usoo tilmaanay i inay la eg tahay root of -1. marka expressionka meel waliba root of -1 ku jirto i aan ku bedelaa, therefore wuxuu noqonayaa x plus i. taasaan ku xalin. Okay, tusaalaha labaad waa 3 minus root 9. hadday muuqaalka dhexdiisa waxaan kusoo sheegnay qarnigii 16aad wixii ka horeeyay negative number ma sahlinin in square root laga saaro, laakiin complex number wuxuu noo suurtagelinayaa tirooyinka negative-ka ah in laga saaro xidid laba jibaar. Okay, numberkaana hadda xidid laba jibaar ka saaraynaa oo ah 3 minus root of 9 waxaan u kala qaadaynaa 9 times -1. root of 9 waxaan u kala qaadaynaa 9 times -1 waxay siinaysaa marka 3 minus root of 9 oo ku dhacsan root of -1. rootka waxaan u kala siinaya maadaama ay ku wada jiraan independently ayaan u siinaya. 9 root aan siinaya, -1 root aan siinaya. already waxaan ogahay labada haddaan isku dhufto -9 inay siinayso. intaas waa isla fahnay male. Okay, qaybtan 3 sida usoo qaado minus dheh tan xidid laba jibaar ka saar. hadda the square root of 9 waa 3 root of -1. Okay, hore waxaan usoo sheegnay meel allaale meeshan root of -1 aan ku aragno i aan ku bedelayna. marka waxaan leeyahay 3 minus 3 meesha root of -1 waxaa ku bedeshaa i oo lagu dhuftay i. numberkaas rootkiisa sidaas ayuu noqonaya. Okay, qaybta c tusaalahan wuxuu leeyahay -2 plus root of -3. Okay, waxaan u kala qaadayaa dabcan saan hore usoo tilmaanay plus root 3 times -1 waxay siinaysaa marka -2 sida usoo qoro plus root 3 times root of -1. waxaan dhahnay meel allaale meeshaan ku aragno root of -1 waxaan ku bedelaynaa i. -2 plus root of 3 lagu dhuftay i waxay ku siinaysaa -2 plus ama i soo hormari ama gadaal mari waa isla meeshii -2 plus i radical 3. Okay, guud ahaan marka waxaan kusoo gebagabeynaynaa ustaad casharkan kelito waxaan ku qaadanaynaa qaybtiisa ugu horeyso sida xidid laba jibaar loogu saarayo negative number. haddii lagu dhaha the square root of -4 haddaad dhihi jirtay impossible, casharkan wixii ka dambeeyey you'll neither call impossible waa ka saari doontaa insha Allah. haddii lagu dhaha square root of -9 waa ka saari doontaa, square root of -16 waad ka saari doontaa, so on and so forth. marka halkaas waxaan ku cadaynay complex numberka in uu yahay tirooyin real ah iyo qayb imaginary ah la isku daray. real haddaa maqasho waa tirooyinka maangalka ah,
oo counting numbers nambarada la xisaabo ama biyone 10 ha ahaado ama biyone 10 both negative and positive integers ama rational ama irrational ha ahaadaan waxaa la isku dhahaa real numbers la isku dhahaa halka imaginary numberka loo yaqaano the square root of negative a negative number therefore I waxay la eg tahay the square root of negative 1 marka waxaan leenahay markaan aan xalinayno qaybtan kelita waxaan ku dabaqaynaa meel alaala meeshii root of negative 1 noo soo baxdo ayaan ku bedelaynaa marka ayadaas waxay caddeyn u tahay numberkaas inuu ahaa negative number therefore hid laba jibaar laga saaray marka cashirka xiga ilaah subxaana wa tacaala waxaan ka codsanayaa inuu nabad iyo naxariis uu nagu gaarsiiyo insha allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu